halkan oo xarunta dhexe guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimo ay ku leeyihiin magaalada muqdisho ayaa 14 urur siyaasadood oo ku soo buray ururada siyaasadda ay guddigu maanta ku guddoonsiiyeen shahaadada meelgaadhka ah ee ururnimo 14 urur ee maanta shahaadada sida rasmiga loo guddoonsiiyey ayaa qayb waxay ka noqon doonaan 43 urur siyaasadeed oo hore u jiray iyagoo ballan qaaday in ay shacabka Soomaaliyeedna ay weydiisan doonaan codkooda si ay u noqdaan ururo rasmiya oo ka qayb gala siyaasadda guud ee dalka. dareenkeena aad iyo aad u sareeya waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqono ururada u tartami doona doorashooyinka qaranka iyo kuwa state-ba. waxaan u mahad celinayaa guddiga doorashooyinka qaranka iyo xuduudaha ee madaxa bannaan jaaniskaana siiyey kadib markii shuruudihii naloo ka baahnay gabi ahaantood aan soo buuxinay sida naloo sheegayna ololuhu wuxuu bilaabanayaa 9 bisha insha Allah taala fagaarayaal badan ayaan isugu imaan doonaa waxaan u adeegi doonaa siyaasad ahaan qarankan iyo bulshada Soomaaliyeed. waxaan kaloo ka codsanay guddiga doorashada inuu noo furo dib inuu noogu furo diiwaangelin dadka bulsho waayo maadaama ururadan hadda aan cusubnahay waxaan rabnaa qolo walba miisaankeeda wadata inaan miisaankeena soo bandhigno inaan diiwaangelino dankii inaan kula tartanno ururada kale ficilna si aan xisbiyada loogu guuleysto. marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay 100% ma cabiri karo dareenkeyga. waxay irinta u furtay in aan maanta registration kan sameeyno waan ururadeennii diiwaangelino si aan uga qayb qaadano doorashooyinka soo socda ee ah degaan state iyo federal. saddex wax oo aan isleeyahay muhiim u tahay xisbiga iyo ururada siyaasadeed ayaa rabnaa in ay hirgalaan. gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan